ninkan waxaa ku dhacay ma maqshan haddaadan maqlin dhow wareena kaa dabageenaayo haddaad nagu cusubtahay daawada folona soo dhawo maasantahay reer tiktok videoga xaqiisa waa taqaaniin like iyo reposta taabta reer facebook idinkana akoonka iga daawanaysaan folo soo dha waa mahadsantii reposta ilaawina guys okay last 78 hours ka dhahday adi 2 maalmood iyo wax la jiro buu ninkani social media haystaa ninkani waxaa la keenay asaga oo gurigii extiisa hortaagan oo video ka duubaya oo ceetamaayo muddo yaroo kooban kadib asaga ayaa soo fariistay sawirka uu gaariga dhex fadhiyana waa ninkan waa dhakhtarka ilkaha weeyaan weliba wadanku sheekadan ka dhacday idinka commentiga kusoo sheegay say doontaba ha noqotee ninkani gabar bay isqabeen buu yiri wuxuu yiri sheekada saad aragteen ma aha ninka waa la caayay mugtay baalaha laga refer comment is not easy hadda daana u tabaraax wayga balaarinay marka waa ina si wanaagsan ula hadlaa dad wanaagsan aad tireer comment waa idin wata si doonta baan noqotay ninkan gaarigu soo fariistay wuxuu yiri se wuxuu dhaceen ana idinka dabagin ana waad idulmisaan bilaash baan adigu caynasaan wuxuu dhahay gabadhan waxaa isqabnay buu yiri 3 sano ka hor maya astaghfirullah muddo 3 sano ah ayaan isqabnay buu yiri muddada 3 sano hal gabar kaliya ayaanan u dhalay same xaafad ayaanan wada deganahay yani dadarisa ayaan aanay buu yiri naagtan waxaan kala maqanahay buu yiri muddo 1 sano ah hadda ayaanu sii kala maqanahay ma astaghfirullah muddo 2 sano ayaan kala maqanahay buu yiri labadaas sanana ilmahayga yar ma aanan arkin buu yiri anagoo 1 sano isqabna ayaan gabar yar noo dhalatay buu yiri 2 sano markaan kala tagaynay gabadhayda yar waxay jirtay wili 2 sano haddana 2 sano laga sii joogaa gabadhayda yar 2 sano oo naagtan kala maqanahay isma arag isma maqal inaan telefoon ka wada hadalno waa la ii diiday inaan arko waa la ii diiday buu yiri guriga marka laga soo saarayo gaari madow baa lagu ridaa buu yiri oo iskuulka lagu geeyaa laguna soo celiya iskuulka ay dhigatan wuxuu yiri waa school international private malay ogoleynaan aragno waxaa la igu yiri buu yiri oo la igu xujiyay maxkamadu ha ku xukumiso inaad ilmaha yar aragtid qualified umatid inaad ilmaha yar aragtid okay wuxuu yiri aniga miyaanan aabihin miyaanan xaq u leeyahay naagtan si xun bay ii gashay aniga oo la nool guriga ku wada nool ayay maaragtay iska kay furtay oo maxkamad ii adeegsatay buu yiri waliba imaysan dareensin xataa inay ii dacweynayso inay iska kay furayso wax dhan imaysan dareensin inuu yiri anagoo normal u wada nool oo wada ceeshayno oo sariir wadaagayno oo nolol wadaagayno bay haddana subaxdii intay iga kala hada ay tiraad saaxiibtay baa soo salaamaya bay maxkamadaha iyo looyarada u tageysay buu yiri soo aniga waa la dulmiyay ilmahayga 2 sano ma aanan arkin ilaa hadda maxkamadan ku laalaabta maxkamadmaduna wax iima qabanin waa dulmanahay buu taaganay soo aragtaa sheekadan qaybta commentiga nagu la wadaaga bye gabadhan Soomaaliyeed waxa ku dhacday ma maqshan haddaadan maqlay intaan ka fahmay sheekadeeda idinka dabageynaya gabadhaani waxay tiri magacayga waxaa la yiraahdaa Iisha video la soo jarjaray baan arkay gabadhan videodeedan waxaan ku arki jiray TikTok runta fiican okay say doonta waan noqday inta videogeedin bilaabi like saara falaadana soo dhigay xaq videos iyo maasanti gabadhaani waxay sheegtay inay tahay hooyo heysata 5 caruur gabadhan 2023 iyo 24 baan videodeeda TikTok ku arki jiray ayadoo live ku jirto ina TikTok marka soo socdo ka soo warbaxaysa qofka Soomaa saas camal okay gabadhan waxay sheegtay inay isqabi jireen ninkaas kor saaran oo cadaanka ah waxay tiri wiil hore Soomaaliyeed baan caruur soo dhalay 3 caruur baan u dhalay bay tiri ninkan cadaankan waxaan u dhalay 5 caruur so videoga inaan duubo videoga igu kalifa waxay tahay video hadda hadlayso iyo video hore miyaa malaha la isku soo dhadhijiyay taasaan marka arabi okay si doonta ha noqotee ninkan cadaanka 2 caruur u dhashay gabadha Mareykan bay ku nooshahay si doonta ha noqotee gabadhaani ninkan cadaanka ah waxaa la soo qaaday video ay leedahay waa soo muslimiyay diintu haysta waxay tiri marka gabadha ninkan cadaanka ah waa kala tagnay amba kala tagna Maxamed diintii uu ka baxay wuxuuna ku laabtay tiri diintiisi waliba diintiisa Kristanka iyo Orthodoxiga waxyaabahan aan aqaan maana diin aan la garaneynba ayuu ku laabtay bay tiri saydoonta waxaa noqotay waxaa walwalka ugu weyn iga hisaabay tiri 2 caruur u dhalay 3 days na asaga haystay 4 days na ana haysto soo waxaa ka baqayaa bay tiri ilmahayga inuu diintaasi iga baro ay iga fadaroobaan wuxuu iima ogolay tiri ilmahayga inaan Afrika geysto iima ogolay inaan la safro wuxuu yiri hadda Afrika geynsa ama la safrisa ee dhaxda xataa inaan ku ogolaado 1 bil ama 2 bilood ka badan ilmahayga lama maqnaan kartid waxay tiri ilmahayga kale aan faaraxa u dhalay quraan online ay dhigtaan tiri waxaan ka baqayaa ilmahayga yani inay kala go ay imaato
oo fikri ah oo koriisho ah oo diin ah. Okay, waxay tiri markaa iisoo duxeeya horta ilaahay dhibkaa ka kor qaado gabadhaas walaashan ilaahayna amuureeda u fududeeyo yaana lagu digan dadku diganaya arkay yaan lagu diganin waxaa layidhi boodarageed maalinba mid baa qaawan yaan lagu digan nabsiga awal waxaa layidhi waxaa wada jiray diidiin hadda laakiin haad baa wada so gabdho especially dumarka ilaahay ka baqa gabadhaas ilaahay ha looga baqo qofka bani aadamka waa khaldami karaa gabadhan marka waxyaabaha aan ku arki jiray waxaa kamid a inay caayi jirtay faaraxyaasha ayadoo maaragtay ammaanaysa faaraxyadan oo gaaladan oo dhahayso yani faarax soomaaliya romantic ma ahan saan ma ahan kan ma ahan gabdhaha soomaaliyeedna waxay siisay advice oon aniguna qabo waxay tiri haddaad faaraxka uga ordaysid oo islaada ilmo cadaana ilmo indhabluugaa dhali ilmo qurux badan baa dhali hadhow tole dhibaata kaasoo horta aniga dhankaa ajaanibta cunsur yar baa ka ahay oo dhinacaas ma isku fiicnin faarax mijo dheeman faaraxyaal xun oo qaraar waa jiraan oo cadkuugu xaaraan yahay laakiin waxaa jira at the same time faaraxyo wanaagsan okay faaraxyo maaragtay ilaahay ka baqaya ilmahooda xaasaskooda reerahooda ilaashanaya waa buuxaan laakiin waa yaryihiin maybe say doonta baa noqoto gabdhaha ku fikiraya inay ajaanibta guursadana talaysis waxay tiri ka fiirsada gabdhaho aniga calafka ilaahay baa haya maribi hadal beritoolaan ka shalaa inaa dhaho calafka ilaahay baa laakiin haddiiba ay dhacdo inaad ajnabi guursatid ka fikir in staypka ah inaad ilmo u dhashid okay faarax ilmaha waa dayacan yes ilmaha makugu daryeelayaan yes waa dhacda waa ku furayaan adoo umula adoo uur leh yes waa ku qayaamayaan yes waa kula guursanayaan mayba qalbigaaga jibinayaanba yes inaa waxyaaba badan ay kugu samayn karaan laakiin one thing faaraxyada gaalka dilgartiisa siiya awlaadaada kugu masilcinayo ama uu kaa qaadan waa saahaysan hadduu korana beri ayagunbaa kusoo raadinaya because waa ilmo diin iyo dhaqan iyo maaragtay lagu korin lagu abaabinaya waalidka jacaylkiisa ama uuba kuu dayn yuu kugu biilin waxba yuu ku siini duurkaasuu kaa galaya haddii uu maanta kugu xumaado tolbaa kaa qabanayo oday dhaqameeda kaa qabanayo dariskaa kaa qabanayo asxaabtiisa kaa qaban karto imaamka masjidka kaa qaban karo dii karta ninkan iga qabta waa loo wacdina iska qalbigiisa in la xariisku geliyo so ilaahay ayadana ha u fududay yaan lagu digan gabdhaha yaan lagu digan gabdhaha na la daayo ilmahaasna ilaahay ha badbaadiyo bay ayadana waxaa leeyahay ilaahay walaala kuu fududay amuurahaaga bal insha allah dadaal inay hayn dad weliga waxaa laga yaabaa media inaan kaaga soo horeyey wax aad maanta la yaaban tahay waxaad maanta is leedahay aniga waxaasaa sameynay beri aad u sameynaysid baa laga yaabaa inaad is aragtid sababtoo ah you never know nalka iga dame you never know beritoole meesha ku dambeynaysid you never know nasiibkaagu meeshuu kaa tuuri doono soo dadaala baay adigan ilaahayna nasiibkaa noo wanaajiyo bay